halkan maanta wax kaga hadli doonaa qisa dhab ah. Nin caadaystay inuu garaaco xaaskiisa maalin waliba una joogteeyay garaacidda xaaskiisa. Subxaanallah, ninkii siduu garaacayay xaaskiisii ayaa maalin sababsatay gacantiisa. Markay sababsatay gacantiisa way ku geeriyootay. Wuxuu sameeyay wuu garan waayay. Wuu soo baxay, wuxuu yimid saaxiibkiisii ayuu ku yidhi, saaxiib, waxaa maanta gacanteeda ku sababsatay xaaskayga, waxaan sameynaa ma garanayo, way geeriyootay. Saaxiib, waxaan kaa rabaa talo. Saaxiibkii wuu yaabay, wuxuu yidhi, saaxiib, way fududahay talada aan ku siinayo. Wuxuu kula taliyay wiil dhalinyaro ah, ku casuumto gurigaaga oo ku soo galana dil. Ninkii markuu soo baxay, wiil dhalinyaro ah ayuu kula kulmay wadada. Wiilkii ayuu u sheegay inuu ku casuumi doono gurigiisii. Wiilkii wuu ka ogolaaday, gurigii ayuu yimid. Wiilkii markuu soo garaacay gurigii odaygii, wiilkii ayuu xabad u furay. Wiilkii barta ayuu ku geeriyooday. Ninkii gabadhii qabay ninkii gacantiisa ku dhimatay xaaskiisa wuxuu wacay gabadha familkeeda. Gabadha familkeeda waxay imaadeen ciddii oo dhan buuq ayaa ka dhashay. Dabcan meesha wuxuu ku qabsaday wuxuu sheegay ama ciddii ku fadhiyay in gabadhii ay sameeyay golaaf. Dabcan ninkaan wuu dilay, waxay sameeyay xaaskiisa iyo nin kale oo soo arkay. dabcan gabadha cidda dhashay waxay dhaheen arrintan ma qari anoo noqoto sigareeto iyana la ogaana cid kale meedkan aan dugno. Ninkii wuu soo baxay, wuxuu u yimid saaxiibkiisa oo murugsan. Ayuu yidhi, saaxiib, maxaa kugu dhacay, waad murugsan tahay? Markaasuu yidhi, saaxiib, wiilkaygii ayaa iga tegay saake welina muusan ii soo laaban, ilaa abtinaadan wuu iga maqan yahay. Markaasuu yidhi, saaxiib, ani taladaasiisa waan sameeyey, wiil dhalinyaro ku casuumay ayuu yidhi gurigayga, kadibna waan dilay. Gabadha familkeeda wacay, arrintaas ka dhadhacsiiyey, marka waan duugi rabaa. Markaasuu yidhi, saaxiib, intaadan duugin meedka iigay anaa arkayo. Saaxiibku waa la soo waday, bixiye ahaana talada waxaa la keenay gurigii. Markii guriga la keenay, wuxuu arkay wiilka asiga uu dhalay oo meed ah. Wuu yaabay, wuxuu qabsaday afka. Dabcan qaladka asigaa leh, wiilkiisii waxba ma sababsan, waxba ma sameyn, laakiin qorshaha lagu dilay waxa bixiyay aabihiis. weligaa ka tali wanaagga oo ku maasada daawashada muuqaalkan.